badan riwaayad abaabusha Cabdiraxmaan riwaayadaha amaada director-ka amaada fikirkeeda balaha riwaayadii kugu la yaabka badneed aad istiraahdo markan wadada maray macnaana iska qosla riwaayadaas kallay riwaayadu way badan yihiin aan dhigna waxa jiray film loo jeeday hinaasiyaha ayadoo taxana aha way hastaan dhameystirin aan kallay baartiya badan ka dhignay aniga iyo saaxiibkay Axmed Military يا دايركتور كاهي أحمد ملتري أدنى سلام iyo iyadana walaashay xamta joon oo iyadana qof qaali waa in badan wax soo wada jilay waxa markaa jirta kulay filimkaasi aad u saameyn xogaa u lahaa waxa laakiin kii ugu saameynta badnaa filim aan oday matari oo aan oday baan qofacayay oo aan dhar oday soo xidhay muraayad yar xarka ku soo xidhay aan wadaxayo ayar yar markan meelaha maray igu oran jiray oo noqday yar oo duqa matari inaan dhintay baan maaliya ilaahay in xariistay bariga waan gaboobay kale in weyn baa taas ay u saameyn badnaa taas ku saameyn badnaa yarkii waa macluumaad wadada markii uu qacay waan gaboobay oo gabigay waxaan yar baan mid kale lacag ku sirayay aan oday xun baan ahaado ugu qaday xalayd ba bariga ayamaha suman oday ahaa imka waan yaray way waxa jirta cid fannaan ma jirta cid fannaan oo taageerto oo taageero buuxda u tahay oo dhan samata waxa kula ma ku hore ahaada ma ku damba ahaada ma ku leeyahay ahaada aad waliba si gaar ah si soo taageerto wallahi wala horta aniga qodaydu jiilkan dambe baan imka ka tirsan la jaanqaado aniga heesaaba kule haddana wixii hore iyo wixii dambe wax la isku doorsan karay ma ragii hore aduu markii qaraan joogta la xamada yaa weyne wax laga ama waay jiray yaa weyne wax laga ama waay jiray wanaagi xigsi waxyeelad qaraamkii suuciskaas kala aad baan behlaa lagu doorsaa ma jiro marka hadan shakhsi ahaan fanaaniin u sheegay intaan jeclay ma sha Allah Maxamed Nuur number 1 waxa ragga Maxamed Salaam Tube Xasan Aadan xagga dumarka Khadra Daahir Magool Maandeeq way badan Sahra Axmed waxaan sidoo kale fanaaniinta dhexe xagga dumarka gabadh Fartuun Biriime reegaxdo ma sha Allah wala ma taabta baan taageeraa in shay miro loo jiray shay miro taar الله نحرسته تكفير أصلا الله نحرسته هذا تاجر كذي والله فنانين تنضمنا والله يفكوا يا سجار والله يفكوا يا سوري يا غمدا يعني لا تعود حفر لا تشوي إنك مقالة الشخص أدم سلام عليكم سلام إنها سجنا أدم تاجرا فنانين توحي تبع الله هذه يقالنا أدم تاجرا فانك من الحسن كل تدير الشخصيات مع سنوات جهة زاوية الولي برتنا نقول ساعتان وردونا في الشيا ما ترتاح دليل ضمن بيفهم كل بترتاح قارب دليل السوق أو مصدر جنوس وتشيلين السوق تيادو ولا نسحب كاسنا دوت كل خدمة تنستوسية أقول اللي سدير رجليه بيجي حنا ولا سكرها والله ولا كل يدي مكها دليلنا بفنان لما يستلم ما أورانك والفنان كمبيوتر تعود كيس وعلى مستوى السمية كمبيوتر مستوى سواء كل فنكو أو حلور ما هو حلس كله قفكي إنه نعود كير شرانا وانو برانكلا واتو تدال سمية تيم قرن سلايف موسيقى أو أرض بتصدق إن قفكو برانكلا مركان وردين تها كمبيوتر كا يوم مكسر كا يهوش ولا واحد لا يلاقي تلاهنا وحسيني إن لايف كلا برتو إن لايف كلا برتو هي دول ما صدق حداما مانتا كولا لها وون كعسون يا عبد الرحمن وانا قد مرتيتها عندنا ديبا عنوينك وكتش عاشا هانديس يا داوا تاسو وضدي انا كلا سمانتا فرصة والله سؤالك هو كديسكا سوما سيد دورت هذا مرتيتها واتكو قصبنتي وحي لو سو دغا inaad تافكس كمريس تمام مرتدا مونانتا لا وين تسي ويديسه ده ku qanacsiyaa u sameeyay martida Soomaa
de kale iska reehawd baan hayo gaalka hilibka la yidhaa aad baan taageera dadku waxay yidhahdaan niyo soodigan hilibka maaha taageera maxaad u feedha weeyaan wey marka horta kaas isaga waxaan qoran lahaa xagga hore isii dhig albaabka ayaa kuusii dhig lahaa waayahay iminka dabcan barnaamij faawan dee kanka ku xigay insha allah waan kugu soo marti qaadi karaa sax haddii aadan sidoo meesha sii decoration garay midabkii waan sii decoration garaya midabka horta wallahi midabka dee dumarka aad u yaqaan anu casaan iyo cadaan iyo huruud iyo akhtar iyo waxaan ka aqaanaa inta commonka caadiga eed ka taqaanaa iminka waxaa laga yaabaa haddaad weydiiso midabkan naga dambeeyana cadaan kuugu sheego cadaan iyo casaan waa isku tartaray laakiin haddaan anagu dumar nahay waan kuu soo qurxin doonaa insha allah markaas meeshaas qurux badan daas qaraarto waan ku dhex keeninaa waayahay xaga jacaylka isku tiin Cabdiraxmaan horta su'aasha kasii yar jawaab horta midabka wallahi midabka barigaan yaraan xaragoon jiray imka waan maaroobay barigaan yara cadaanka ka yiri cadaanka weeyay cadaanka la ahade ninka dheehbaan lahaay imka waan maaroobay intii aan weynaaday cadaanka jecel isan hadda madow xidhanaydo adu cadaanka aad baan taageeraa cadaanka aad taageertaa waayahay xaga jacaylka aad waxaad isku tiin jacaylka walaalkaa igu soo qaaday ma inaan afhayeenahayo dee nin hal abuuraan hay aan dadka intaa u garanaqayo laba istiiday laba arooskoodii soo laba mushxarada iyo laba sii kala socda aan waxaa iska aan kabad haysto mise in aniga oo jacayl iyo xaggayga badahayga aniga dhexdayda ma soo galo isku wanaagsan jacaylka dadka intooda badan wax dhacda had iyo jeer hablaha maartay tahaasawahooda inanta waxaa laga maanta wadin labadeena kaftamayna inaan ku xeejiyo wada qoso la wada dhuran laakiin markay run gaadho maaha ay hadalku iga soo xirmaya deegiisu iska tag boodhanaya laba jeer xabiib iyo waxaa markaan ku idhaha marka dambe daandana waxaan qoraya beerkaad u seexataa iyo hooyada ayaa abaha kaybaa weynay hadalkaa iga soo xirmaya halkaas kaasaa dhibaataa halkaas kasoo baxay dhibaato keenayay deetana waxaan la yaabaa anu maaragta dadka wada hadla dhowrka saacadood maaha screen shot bay ka soo qaadayaan ma inanta ama inanka Soomaaliya xalay ma aan seexdaba jacayl waxaas dadka xantaan kuwaas waxa jacayl masrada waa dadka la soo xaday soo karanaga iga soo oodmiyay mi waalin ma soo oodin dadka inta badan waxay dhahdaan haddaan agoonku marxalad soo marin marxaladaha uu soo maro muddo ka sheekay haddaan jacayl soo marin deeban ma noqon karo arrinta xad ku beenaysa walaal waa runtahay arrinka waxba ka jira haddaan qofku marxalada soo marin muddo turjumka Yusuf Xaajalo ma filaya inuu ahay abwaankii wakiilaha dabayga uurka buki arami ka keen ama olol jacayl iyo xanuun ku ijbaaray afkum baad ka leedahay tixu arar ma yeesha suugaantu dareen ka dhaata haddii imika aniga uu dareen igu dhashay iga keenay inaan gabiyo laba mirir ugu qaadanayso halkaasaan ka golo ka fuulaya laakiin haddaad adigu taado munaasabad noocaasaan laga gabay noocaasa ka soo gabay waxaa laga yaabaa 12 habeen usoo jeedo ama wareego ama aan laakiin haddaan waxaan ku qancaa iga sheekayso oo dareen tusaale ahaan oo kale waxaad ka cabanaysaa jacaylka saaxiibka saaxiibkay anaan isku wanaagsanin baan iiga warrantayba haddaan ku qanco wixii aad iga sheegaysay dareenkayga kiciyaano ama aan ka cadhoodo aan islaaqal inantaasaa loo galayday ama aan murugo kale igu dhaliso ama farxad iga sheekaysan farxadda kula qaybsado oo aan dib garanaysaa shucuurtayda isku disho halkaasaan ku curan inagoo halkaa fadhiga ka kicin ayaan suugaanta doon soo curin karay markaa dareenkaasi ku dhalata dareenkaasi ku dhalata waxaan ku weydiiyey single miyaa timise wada hawsheeda la noo soo wadaa markaan anaga yara jecelisaa dad ba su-aalaada noo soo qorqoro waxaan tixgelinaynaa codsigii bulshada ilaahay caadilsan sooniga kula jacayl isma wanaagsan markaa way soo socotaa marwadii waxaan weyn oo darag waa laba raggaad aragtay nin habeenkii markuu sii seexanay naska dhexe nin macawistiisu taytaya midna jaajarkiisa hawad fahansantii anuu kooxda jaajarka baadhaa doobabkaasaanay inta kalena waa nin iska dambe macawistiisu taytaya ninka reer kale ilaahay baad leedahay daba marwadi baan fariina kaa marinayna inaan naga soo dheeree inaan hooyadeedii abheed bay iskuulsa baan mariya taydi ana iyadu waa dhalanba inaan dhalan yahay dhimatay waa iyadana la qabo ma lahday tantood dee lacala hadda maxaa soo furay iskaalkeedii way tegaysaa
إن عبد الرحمن dalxiis ba hadaba lacala ku saari lahaa maanta ku oran la dalxiis meel heblan doon aduguna ku dalxiiskeen dee dhul qurux badan ku la dalxiiskeen doonayay halkeebad ku jeceshay meel allaaliye meesha adduunka ugu jeceshahayba ii sheegan ku geey maanta horta hadda su'aal wanaagsan weydii gabigayga dalxiiska saan uga helo sidaas adigu dalxiiskaysiin way dalxiiska aad baan uga helaa haddaan fasax yara yeesho in jar ma fadhii karay ku kiciya iska daa meelka wadamada jaarkan u gudba guurta daalada meesha meel ka jawi wanaagsan iyo chance baanan helin inta badan weey pool yar baan ka dul dhisan lahaa adduunka maxaad ugu jeceshahay inaad gasho ama si ka farxiya ma adduunyada dhulka ilaahayda والله انت soo dadka xanaaqabaad ahayna mar walba dhalacadaynta ku badan tahay qosolka horena aad xanaaqantay oo class baan hayo waxaan happy to happy naagtii hesha awal waxa weeyaan waxa ma garanaysaa waa mar marxalad ku futay xilli wali rugaysan xilli waa faraxsan xilli meel xaasidad laayto waxaan maqlo marba waxba marba walaal xaalad uu taagan yahay wax dhagaha maqlaan soo ma su'aashu waa kaliisato maxaa mala kalaamka ilaahay quraanka horta waan jeclay markaan maqlo oo isku faraxdaa dareenkayga isbedel cidoo quraanka soma ilaahayii heesaya quraanka markaan dhageysanayo ma haraabiya inaan madaxa saa yara ilaa mooyaan ilaahay soo haday hoosta ka leeyahay moogta laakiin aad baan jeclay kalaamka alle way farax geliya aad u quraanka jecesha waxa soo gaana guntiga gabagabadii xilgabada isku macsalaamin halkay salaam maranays orda salaanta haddaan cid gaara ka bilaabo ama magacyo gaara sheego dadka laga geeyo meesha hebel hebel salaam inta kalena xun nooga reebay oran dhammaan dadka inta islaamka ah salaam gaar ahaan dadka iga Soomaaliyeed baan si salaam gaar ahaan asxaabtayda salaam family-gayga ma garanaysaa islaamtayda 2030 soo socota insha Allah ta'ala inay hooyadii abis ku soo marmayaan kamalaay adiga si gaar ah ku sameeya iyo dhammaan bahda ridwan official oo dhan aadna waan idinku mahadcelinaya aniga qudhid waan isu mahadcelinaya aad baan waqtiga quruxda badan kaaga mahadcelinaya Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil Cabdiraxmaan Qalabjaan oo waxaan ku wari waqtiga inta laga siiyay in qofna waxa la siiyay ma loogu deeqo waqtigu waa dahabdi waqtiga uu qaalisan aad iyo aad kaaga mahadcelinaya daawadayaal inta waxa inooga barnaamijkeena martida maanta oo aad kala socoteen Ridwan Official waxaana toddobaadkii hal mar idin soo tabisay aniga ah Nicmo Cali Xarsiin tan barnaamijkan kala ku kulmayna waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh